بسم الله الرحمن الرحيم. سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا، وانظر معالمها والعزم عنوانا، واستلهم الرشدا منها وتبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إمام البخاري إمام المسلم وحكسوا إن صحابي عبد الله بن مسعود كوريين إنه كم مقل النبي إن سبحانه صلوات ربي وسلام عليه سوى أرنية قفك بني آدمك وحال إسوه كان يأورك هو يديس كدبنا أفرتا مع الموت وحويه لبع بيئة أفرتا مع الموت وكلنا وحويه حنجر أورك لقلا لاديي أفرتا مع الموت وكلنا وحويه عاد هليبه ولا لقي كرو kadib markii 120 maalmood u dhamaato oo 4 bilood waxaa loo soo dirayaa malag ku afuufa ruuxda, waxaana malaga la amrayaa inuu qoro 4 waxyaalood. wuxuu qorayaa risqigiisa iyo camalkiisa iyo goortuu dhiman lahaa iyo hadduu yahay mid liibaanaya ama mid hoogaya. nabigu sallallahu alayhi wasallam ayaa xadiiska sii wada wuxuu leeyahay: fawalladii laa ilaaha ghayruhu inna axadakum la yacmalu bicamali ahli aljanna xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رسولك صلى الله عليه وسلم وحو حديث كاس انتا كراعي أو كدري سقو كدارنية إلهي إنو سنجرين الله مويان سبحانه وتعالى ورسولك لي أحد كين وحو شقينيا أما عمل فليا sida ruuxa ahlu jannada oo amal falo ilaa jannadii isaga hal dhudhun isu soo jirsada. waxaa si u hormariyay kitaabkiisii fayacmalu bicamali ahli naar, markaasoo dadka xunxun acmaashoodii buu samaynayaa, sidaasuu marka uu naarta ku mutaysanaya oo ku gelaya. wuxuu kaloo rasuulku sheegay in uu leeyahay axadkiin wuxuu camal falayaa camalka dadka ahlu naarka ah iyo dadka xunxun ilaa isaga iyo naartii hal dhudhun isu soo jirsada, laakiin kitaabkiisa ayaa u hormarhaya فيعمل بعمل أهل الجنة marka dadka ahlu khayrka ah camalkoodii buu sameeynaya, sidaasuu marka waxa weyn oo jannada ku galaya. xadiiskaas marka run ahaantii waa xadiis aad u cabsi badan oo goodin iyo digniin weyn xambaarsan. saxaabadii dadkiisu banaa oo naga horeeyana xadiiska waxa uu ku reebi jiray argagax aad u weyn iyo walbahaar. waa xadiis marka ay saxaabadu maqlaan ay ilmeyn jireen oo ka baqan jireen inay ka mid noqdaan kuwa camalkooda oo baaba'ayo ama uu burayo oo markaas ay naftu ka baxdo iyaga oo ku sugan xaaladaas Ilaahay raali ka ahayn. xadiisku wuxuu tilmaamayaa dad markoodii hore khayr iyo wanaag iyo toosnaan ku sugnaa, kadibna gadaal u laabtay oo ka xoobsibtay diintii iyo camalkii wanaagsanaa ay samay jireen. waxay ahaayeen dad marka aad kor ka eegto aad leedahay maasha Allah, qofkani qumana, walaalkani waa wanaagsan yahay. waa qof marka aad kor ka eegto aad leedahay qofkani waa qof mujaahid ah, waa qof sheekha, waa wadaad dhowrsan, waa gabar Ilaahay ku xiran, waa muuqaalka kore marka laga fiiriyo, laakiin hoos looma jeedo. waaba qof balaayo u qarsoon tahay, waa qof qalbiga ka buka, waa qof jiran oo aafaysan markuu keligiis yahay xumaanta uun sameeya. dadkuna ma dareemayaan, laakiin Ilaahay baa u jeeda subxaanahu wa tacaala. aakhire marka la tago waxaa soo ifbaxaysa qofkaas wuxuu ahaa. xadiis kale nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay 3 qof oo ugu horeeya oo naartu dubanaysa ama naarta la gelinayo waa nin mujaahid ah, nin caalim ah quraanka yaqaana, iyo nin hanti leh oo xoolihiisa bixin jiray. mid waliba marka la soo istaajiyo Ilaahay hortiisa, Ilaahay ayaa garansiinaya ama tusaaleynaya galadii iyo nicmadii uu galay subxaanahu wa tacaala intii adduunka joogeen. kadibna Ilaahay wuxuu weydiinayaa nicmadaas uu siiyey wixii ay kaga jawaabeen ama waxay la yimaadeen.
iyo waxay ku camal faleen waxaa loogu horreysiinaya ninka mujaahidka ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu weydiinaya wuxuu le intaasoo nicmo ayaan kuu galay maxaad soo qabatay ninkii mujaahidka marka wuxuu oranaya ilaahay dartaa baan u dagaalamay ilaah la isoo dilay adiga dartaa la iisoo dilay ilaahay subxaanahu watacaala oo ah midka aanay waxba ka qarsoomin oo garanaya qofka wuxuu muujinayo iyo wax laabta uu ku qarinayo ayaa marka ilaahay ugu jawaabaya qofkii wuxuu leeyahay been baad sheegtay waxaad u dagaalamaysay in lagu yiraahdo hebel waa geesi waa sidan arrinta iyada waa lagu yiri kadibna naarta ayaa lagu tuurayaa isagoo wejigiis dhulka lagu jiidayo sidoo kale ninkii qaariga ahaa ee cilmiga lahaana iyo kii hantida lahaa labadaba sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala su'aalaha weydiinaya kii qaariga waxaa la oranayaa intaasoo nicmo ayaan kuu galay maxaad soo qabatay wuxuu oranaya ilaahay subxaanahu watacaala dartaabaan qur-aanka u akhrin jiray dartaabaan dadka cilmiga u bari jiray aad baan u qurxin jiray ilaahay wuxuu ugu jawaabaya subxaanahu watacaala been baad sheegtay ee waxaan u samaynaysay ha lagu yiraahdo ninku waa qaari waa caalim waa lagu soo yiri sidoo kale naarta loo jiidaya kii hantida lahaa ilaahay sidoo kale u weydiiyay subxaanahu watacaala war nicmadii aan kuu galay maxaad ku soo qabatay ilaahay hantida saasaan midig iyo bidix baan ka tuuri jiray khayrkaan ku bixin jiray maa min khayr ilaa waan ku shaariki jiray maalkayga been baad sheegtaa rabbi ku oranaya subxaanahu watacaala oo waxay ahayd ujeeddadaadu hebel waa deeqsi waa gacan furan yahay waana laguu soo yiri naartaa loo kaxaynaya ilaahay ayaan ka magangelaynaa marka walaalayaal si aanan uga mid noqon kuwan xadiiska lagu sheegay oo aanan u noqon maalinta qiyaamo kuwa tacab beele ama tacab khasaare aan camalkeenna iyo jihaadkeenna ilaahay u baraxtirno hana laga helo ikhlaas wax waliba oo aan qabanayno ilaahay dartiis hanaga ahaadaan amiir dartiisiiusan naga noqon jihaadkanagu magac iyo maamuus ku heliyuusan naga noqon jaga iyo xilraadiisiusan naga noqon ismuuji kartidaada hala arkayuusan naga noqon jihaadkeennu markaad keligaa tahay iyo marka aad dadka la joogtaba camalkaaga iyo qalbigaaga mid hal ha noqdeen oo yaysan noqon markaad dadka dhex joogtaan inaad toosan tahay oo lagu maleeyo awliye ilaahay markaad gooni tahay oo aad gurigaaga joogtana inaad dembiga iyo xumaanta dhex dabaalato ilaahay ha laga baqo waxaadna ogaataan dadka jihaadka ka taga ama wanaagga ka hara ama shalay lagu tilmaami jiray dad suuban oo dhowrsan kadibna gadaal iyo ciribtooda dambe ku noqday oo dhabbihii toosnaa iyo siraad mustaqiimkii ka bayray waa dad markoodii hore uurka ka jiranaa oo falal aan wanaagsanayn iyo dembiyo ku mutaystay qaadida ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay inna aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan inama istazallahum ashaytaanu bibacdi maa kasabuu waayo ilaahay waa caadil qof quman oo qalbigiisu toosan yahay ilaahay iskama baadiyaynayo laakiin waa wax qofku gacmihiisa ku raadsaday taasina waxaa daliil u ah ilaahay qowlkiisa subxaanahu watacaala dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim wa ana allaha samiicun caliim ilaahay sidoo kale kitaabkiisa wuxuu ku yidhi falamaa zaaguu azaaga allahu quluubahum wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin sidoo kale alla subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku sheegay fain tawallow faaclam anamaa yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim wa ina kaiira min annaasi lafaasiquun ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu islaamka iyo jihaadka iyo khayrka nagu sugo uusanna naga badal qaadan mar kastana waxaa la rabaa qofka inuusan ka aamin noqon fitnada iyo baadida waayo qalbiga bini aadamku sida suubanuhu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina alquluuba bayna asbucayni min asaabic illaah yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku jirtaa gacanta alle subxaanahu watacaala iyo qabdadiisa siduu doonan u rogrogahayaa oo u gedinayaa sida awgeed buu nabigu sal allahu calayh wasalam ducada ugu badan oo ku ducaysan jiray waxay ahayd allaahuma yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik allaahuma yaa musarifa alquluub sarif quluubana calaa taacatik وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا.